barkhad su'aal shaydaan ku weydiiyo madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu yaasiin maxamuud xiir farato nin Soomaaliland ku weyn yahay marka yaasiin baa dooranaysaa adu Soomaaliland ku weyn baa tirso maaha wadaad mataasa maya anu qof islaamaan ahay islaamku saddex sharduun buu eegaa qofka aqoontiisa awoodiisa iyo amaanadiisa waa mahadsantahay amaya dhameeyo meesha cidda imanaysa markaad leedahay maxaa la kala dooranayaa qolada kulmiye waxay keentay xildhibaankoodii faratoon annaguna cabdirasaaq baanu keennay anigu imikaan Soomaaliland u cadeynayaa yaasiin faratoon waa nin odaya laakiin nasashu u baahan yahay waqtiga nasashada oday hadda imika la oran lahaa gudoomiyaha golaha wakiilada kulmiye wuxuu keenayaa Axmed Nuur Gureeje dan in isku filaanu nahay oo sharci yaqaan oo dhalinyaro oo hogaamin karaya oo da gudoomiyaha golaha isaga baan sii lahaanu oo damaana wada marka anigu cabdirasaaq taan ku fadilayaa waa taa waad maasanta waxa laga hadlayay shir gudoonka golaha wakiilada kulli toolasa ay noognahay xisbiyada kulmiye waxa uu taagan faratoon cabdirasaaqna xagga kale uu taagan yahay 82 mudane golaha yimid baa dooranaya kii ilaahay u qorana way imanaya waxa laga dhur sugayaa oo marka uu madaxweynuhu soo saaro bisha gudaheega maadaama maxkamadii ay ku dhawaaqday in xildhibaanadu fadhiistaan ninka ugu dadweynaha hogaamiyo sidoo qodobka 44 sheegayo ama xeeroosaadka golaha wakiiladu laakiin waxaad moodaa in fahan qaldan laga haysto saaxiibaday baan maqlayo marka laga hadlayo faratoon iyo cabdirasaaq inta badan waxa sheegaan in cabdirasaaq ku haboon yahay sidii barkhad sheegay in ninka la yiraahdo faratoon uu nasasho u baahan yahay horta inagu miyaa layna aqoonsaday cabdirasaaq uu firfircoon yahay baa laga sheekeeyaa ma maratoon buu ka qayb gelayaa haddii maxaad uga jeedaa maratoon buu ka qayb gelayaa yani ma orod baad leedahay maxaad uga jeedaa su'aasha cadde xildhibaanada maadsan cabdirasaaq ma durayo runtii inuu dhalinyaro yahay inuu nin wanaagsan yahay inuu firfircoon yahay baa lagu soo celceliyey marka haddii orod loo baahan yahay cabdirasaaq ngeyno orodkaa inaga qayb gale laakiin waxaa loo baahan yahay isku hayn 82 mudane oo 82 barkhadda meesha jooga yaa isku hayn karaa waxaa isku haynayaa nin dul leh wax badan u soo joogay dastuurkan ninka la yidhaha maxamed faratoon ku qoray waxbuu ka qoray lix jeclo fara badan buu dalkan ka leeyahay waa waayarag taasaanu ku xulanaa qodobka kale maxamedow aan doonaya inaan saxo xildhibaanada saaxiibaday waxay ku celceliyeen lacag baa kulmiye bixinaya ajiib lacagtan la bixinayo waran waxaan leeyahay xildhibaanada mucaaradka cayda ka daaya yaan lagu gafi qiyamkooda waan ku siinaya microphone waan ku siinaya Umar adaa u jawaabaya waan ku siinaya waan ku siinaya su'aashaada waad weydiin doontaa waan ku siinaya ana ku siinaya Umar Jaamac way waqtigiisa ha dhamaysto cali isoo noqo aynu ismaqalno way xildhibaan ku soo dhawow xisbiyada mucaaradku arrinta lacagtaad ka hadashay ee laydinku eedaynaya xisbigiina kulmiye inaad siinaysaan xildhibaano mucaarada waniyo shakhsiyan anuu meel lagu bixinayo lacagta iyo cid bixinaysa afka mucaaradka way ku jirtaa hadiyo jeerna way ka hadlaan xildhibaano soo daalay soo tartamay inay hogaamiyaan golahan iyo inay ka mid noqdaan iyo inay wax saxaan in la yiraahdo lacag baa la siinayaa meesha ma qabato hadday dhacdo oo sidaaba ay ku soo celceliyaan markii hore aan karaa ayay xulashada waxa xumayd mucaaradka haddiiba laga iibsan karo ama laga kaxaysan karo maxay ka soo sharaxayeen